waxa maanta hotelka Mansoor ee magaalada Hargeysa ka furmay carwo ganacsiyeed lagu soo bandhigay ganacsiga haweenka Soomaaliland ay leeyihiin carwadan oo ahayd mid ay haweenku si gaar ah ganacsigooda ugu soo bandhigayeen isla markaana loogu magac daray bandhiga carwada ganacsiga bisha hal abuurka haweenka ganacsatada ah ee reer Soomaaliland ayaa waxa maalgeliyay midowga Yurub waxana fuliyay hay'adda ILO oo ay kala shaqeynayeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland iyo rugta ganacsiga Soomaaliland waxa maanta ganacsigoodii carwadan ku soo bandhigay konton meheradood oo ah kuwa ay iska leeyihiin haweenka reer Soomaaliland kuwaasi oo isugu jiray kuwa waaweyn kuwa dhexe iyo kuwa yaryar wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Bashiir Cabdi Xariir oo isagu si rasmi ah carwadan maanta u furay ayaa si weyn ugu mahadnaqay haweenka ganacsigooda ku soo bandhigay carwadan midowga Yurub ee maalgeliyay iyo hay'adda ILO oo hirgelisay carwadan waxaana hadaladii wasiir ku-xigeenka kamid ahaa sidoo kale waxa isaguna carwadan hadal ka jeediyay Maxamed Cabdiraxiin Sheekh Xasan oo kamid ah saraakiisha sarsare ee hay'adda ILO isagoo sheegay in carwadan ay ugu tala galeen in ay ku dhiirigeliyaan haweenka reer Soomaaliland ee ku jira ganacsiga iyo sidii loogu baraarujin lahaa in ay horumariyaan ganacsigooda Maxamed Cabdiraxiin Sheekh Xasan oo arimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri qaabka ay u maamulayaan ganacsigooda iyo qaabka ay u yeelanayeen maalgelin ama dhaqaale si ay u leeyahay waxaan rajaynaynaa inaan tababar siino 250 ganacsi oo dumar ah inaan tababar siino oo iyaguna qayb ka noqdaan xogayaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliland Ibrahim Ismaaciil Cilmi oo kamid ahaa mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay carwadani u leedahay dumarka ganacsatada ah ee reer Soomaaliland isagoo sheegay in rugta ganacsiga Soomaaliland qorshaheeda siyaasadeed ay ku jirto mid lagu horumarinayo guud ahaanba ganacsiga gaar ahaan ganacsiga haweenka reer Soomaaliland ugu dambeyntii mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay carwadan ayaa booqasho ku gaala bixiyay xarumihii iyo meelihii ay ganacsatadu alaabooyinkooda ku sharxeen gudaha carwada dhexdeeda carwadan oo socon doonta muddo 2 maalmood ayaa ah carwadii ugu horeysay nooceeda oo laga sameeyo dalka Soomaaliland isla markaana ay dumarku si gaar ah ganacsiga ay gacanta ku hayaan u soo bandhigaan